Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddaba muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdo aad iyo aad u xanuun badan. Odayga halkan idinka muuqda gabadhiisa waa tan way indhala'dahay, xataa labadan caruur ee dhabta ku haysato ma garanayso oo wejigooda may arag. Haddaba dhacdadan isla dhigaysano waxaan rajaynayaa in aad usoo ducayn doontaan oo ilaahayna waxaan uga baryaa inuu araggeeda u soo celiyo uu khayrna ugu bedelo. Haddaba daawasho wacan yaanan hadalkaydu ku daalin. waxa uu ku fogan yahay difaaca qaranka iyo buuxinta kaalinkii ay gabtay hooyo Ardo oo aragga beeshay iyadoo uguba balse dhashay wiil iyo gabar aysan weligeed arag. gurigan waxa degan askari booliis ah oo la daaladhacaya sidii uu caawin lahaa xaaskiisa oo dhawaan xabadii madaxa uga dhacday taasi oo aragga beeshay. sidoo kale toona qaranku uu ka doonayo inuu guto waajibaadkiisa shaqo ee askarinimo. Alifle Booliis Maxamed Barkhadle aroortii intuusan u kallihin shaqada waardiyaha ayuu dabka u shidaa qoyskan wuxuuna u diyaariyaa raashinkii ay 2 cisho cuni lahaayeen. xilligii aan imaado yaa wixii xataa bari ay cuni lahaayeen isku dayaa inaan u diyaarin karo oo meel wax kale to arxan ah ma jiro iyaduna dabna ma arkayso biyo ma shuban karto ilmaha leeyla fadhidaa oo meeshii la kuudaa bartaan kaga tagaan ugu imaadaa. 5 sano ka hor xabad meel fog laga soo gamay ayaa madaxa fadhiisatay hooyo Ardo oo maraysay dhabarka hotel Cascasay Kismaayo waana tan arag la'aanta u keentay. amar alla iyadoo iska socota yaa xabado meel raashimo iyo wax lagu qaybsanayay oo dad macaawina lagu siinayay yaa qolyihii macaawinada qaybinayay xabadii isku fureen xabad wiifto oo darbi ku dhacda iskaga dhacday dad islaameed baa qaaday kadib baa ani telefoon la iga soo sheegay meel aan wax uga tari karana ma ahayn 3 bilood kadib markaan koorsadii soo dhameystay iyadoo kale bogsatay aan u imid. hooyo Ardo riyadeeda ayaa ah inay dhaayaha saarto caruurteeda si ay ugu undhakuulato dhallaankan soo koraya. way dhibaataysanahay inay cadi inay madooyo ma arko inuu masku soo socdo ma arko ninkeena nin qaran Soomaaliyeed waaye waxaan rabaa ka codsanaa madaxda Soomaaliyeed inay ilaahay dartiis wax igu qabtaan ee garab isiyaan meel ay joogaanba. daawo iyo daryeel uusan awoodin ayaa dushiisa noqotay. dhakhaatiir dhowr ahna waxay u sheegeen inaan indhaheeda waxba laga qaban karin. awood kale kolka aan tari karin ma lahayna waan soo qaatay xamar baan keenay isbitaaladii xamar baan kula warwareegay waxba waa la iiga qaban waayay. balse cisbitaalka Erdogan oo kaashanaya dhakhaatiir aan kala fadhigoodu yahay ayaa ku wargeliyay in la daweyn karo indhaheeda waxayse ku xireen ogolaansho safar caafimaad inuu ka doonto dawladda taasi oo ku noqotay caqabad kale. isbitaalka warqadan waa isbitaalka ugu dambeysay oo ahaa in dawladdaada ogolaansho ka soo helayay annaga ku daaweynayna waa qaadaynaa gabadhan fiisihii iyo tigidhkii iyo baasaboorkii soo diyaarso ogolaansho ka soo hel maxaan ku raahdaayay indhaheedu ma ayna dhimanina wax waa laga qaban karaa warqadaas ay ku cadeynayaan dhakhaatiirtii. markaan tan ka soo rujuucay wasaaradda caafimaadkan ula imid tii wasaaradda caafimaadkuna waa tanaa. wasaaradda caafimaadku warqadan ay siiyeen waxay dhaheen wasaaradda arrimaha dibadda aad wax kaloo jawaabay imayna siinin iyo wax faahfaahin oo kale waxba toona imay siinin. wasaaraddii kale markaan tagayna waxa ila hadlaba waa waay saan isaga dawrkaan ku daalay baan iskaga tagayba. Sagal Maxamed oo dirislaa qoyskan ayaa ka marakacaysa duruufaha isu soo taraya ee daashaday. waxaan lahay dadkan diris maamadaas waa maamo indhool ah haysato 2 caruur ah waxaan aad u dhiban tahay indha ilmaheeda ma kala garanayso marka uu madaxo ku leedahay cunugeyga macadiya masuu madow yahay ninkeedana waa askari qaranka difaaca. 13 sano ayuu gumaca baaruuda wax gumaada ku wajahayay nabadiidka haddase wuxuu ku jahwareersan yahay jidkii iyo jihadii
uu daryeel caafimaad uga heli lahaa xaaskiisa. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.